muuqaalkan daawo haddii aad rabtid inaad hindiya aad u imaadid caafimaad. hindiya waxay ka mid tahay dalalka ugu badan ee soomaalida dal iyo dibadba ay u yimaadaan caafimaadka. haddaba halkani dalka indiya waa meel ku wanaagsan daryeelka caafimaadka, waa meel quality-geeda ama tayadeeda isbitaallo hadday noqon lahayd dhaqaatiir, hadday noqon lahayd daawo, intaba ay aad u sarrayso marka loo fiiriyo dalalka kale. balse soomaalida badanaa imaada halkani waxaa jira dhibaatooyin ay dabcan qaar ka mid a ay kala kulmaan ama ay ka cabtaan. cabashadaasi waa mid marar badan jirtay oo soona noqon jirtay. muuqaalkaanse waxaan kugula wadaagayaa waxyaabo aad u badan oo muhiim ah oo ku anfacaya inaad ogaatid inta aad imaanin dalka indiya. indiya way weyn tahay, iskuma jirto. soomaalida waxay gaar ahaan ay timaadaa inta badan magaalada la yidhaahdo Hyderabad. waa meel ay ku badan yihiin soomaalida, waa magaalo muslimiinteedu ay aad u badan yihiin oo haddii aad imaaddo aad dareemaysid dabcan meel muslimiin inaad joogtid marka loo fiiriyo magaalooyinka kale ay u badan yihiin dadka aan ahayn muslimiinta. waa magaalo cimilo ahaan aad u fiican, jawigeeda aan ahayn qabow, kuleel zaa'idana aan ahayn, inkastoo ay jirto xilliyada qaar in kuleelkeedu badan yahay, balse sida guud waa meel cimiladeedu ay shabahdo kuwa Soomaaliya. waxaa yimaada dad badan oo Soomaali ah, ha noqdaan kuwa ka imaanaya dalka ama dibaddaba. waxyaabaha ay ka cabtaan waxay khusaysaa dhanka isbitaallada, maadaama ay u yimaadaan caafimaad. isbitaalladuna ma aha inay ka cabanayaan tayada isbitaallada, ee waa dadka u dhexeeya ayaga iyo isbitaalka. haddii si kale u dhigana waa turjubaanada dadka iyo isbitaalka u dhexeeya ee dadka isbitaallada geeya. kuwaasi ayay marar badan ay dhaliil ka soo noqotaa. haddaba dadku isku mid ma wada ahan oo dad xun iyo dad fiican intaba way ku jirtaa, balse waxaan kula wadaagayaa habka aad ku xulan kartid qof wanaagsan aadna iskaga ilaalin kartid dadka xun. marka koowaad, qofka aad rabtid in uu kaa saacideeyo isbitaalka waa inaad iska fiirisaa shakhsi ahaantiisa ma yahay qof leh aqoontii amaba wixii aad rabtay muraadkaagii in si xaqabtiran uu kuugu sameeyo. haddii aad qofka aad u raacdo inaad taqaanid ama aad qaraabo tihiin balse heerka aqoontiisa aysan xaqabtiri karin baahidaada, dabcan waxay noqonaysaa mid adiga ku dhibaataysa oo dib kugu soo laabata, amaba hadhoodii aad ka cabatid oo dabcan qofkii aad dhahdid qofkaas asaas ii galay iyo sidaan iyo sida. balse haddaad marka hore si cadaalada aad u xulatid qofka aad raadinaysid inuu yahay qof aamin ah, akhlaaqiyan wanaagsan, shakhsiyaddiisa markii aad fiirisidna aad sawiran kartid qof akhyaara inuu yahay, aqoontiisana aad dabcan aad weydiin kartid amaba aad tijaabin kartid. oo qofka dadka badankooda imaada halkani ma ahan dad aqoon ahaan dabcan fahmi kara qofka u qalma oo caawin kara iyo qofka kale, sababtoo ah ayagiiba ma yaqaanaan luuqadda. sidaas awgeed bay ku adkaanaysaa qofka marka inuu ogaado qofkani aqoontiisa heerkay tahay in baahida uu qabo in laga xaqabtiri karayo in kale. xalkeedase gadaal ayaan kaaga sheegi doonaa. arrinta kale ee laga cabtana waxay tahay in dadkani turjumaanka ah ay sameeyaan in isbitaallada qaarkood ay dadka lacagaha ay ku badiyaan ama lacaga ay dul saartaan amaba ay waxyaabo ay ka hadlayaan dadka bukaanka. arrintaasi inta anigan ka ogahay hadda ka hor mar waa maqlay, weynay jiri jirtay, balse baryahan dambe way sii yaraanaysaa, inkastoo ay jiri karaan mararka qaar 1 iyo 2 qof oo xun oo dabcan dhibaato kuu geysta. ani ahaantayda waxaan joogay magaalada Hyderabad oo aan wax ka baran jiray muddo 5 sano ah. waana meel aan aad u jeclahay oo aan dabcan aad u fahmay, aad ula qabsaday, hadday noqon lahayd dhankeeda waxbarasho, dhankeeda nololeed, dhankeeda caafimaad, intaba aan xog badan oo macluumaad badan aan ka hayo. haddii aan muuqaalkan daawanaysidna xogta aan ku siinayo waa mid aad isku halayn kartid, sababtoo ah waxa aan ka hadlayo waa waxa aan ogahay amaba aqoonteeda aan leeyahay. haddaba qofka marka uu imaanayo hindiya muxuu u baahan yahay inuu ogaado? waxaad u baahantahay inaad ogaatid isbitaalka midka fiican iyo midka xun inaad kala ogaatid, meesha la dego, deegaanka meesha ugu fiican iyo meesha ugu xun waa inaad ogaato xogtaasi oo idan. daryeelka caafimaad ee aad raadinaysid meesha ku fiican iyo meesha ku liidata. isbitaalladu ayagoo wada fiican haddana xanuun walba waxaa jira isbitaallo qaarkood ku sarreeya dhankaasi oo ku fiican, inkastoo ay wada fiican yihiin isbitaallada badankood. marka waxaa muhiima inaad ogaan kartid amaba xogtaas aad heli kartid inta aadan aadin meeshaasi, deegaankaaga, isbitaallada fiican, meeshu sida ay tahay nolosheeda, maciishadeeda, guryaha, deegaanka meesha ugu habboon, hadday noqon lahayd qarash ahaan qofka inta ku filan qiyaastii. xogtaasi oo dhan waa wax basic ah oo muhiim ah oo qofka inuu ogaado ay dabcan ay ka saacideynayso wax badan oo hadhowdii ka saacideynaysa in aadan meeshii aadan ku wareerin amaba aad xisaab intaad soo xisaabsatid wax xisaab khaldan isku dhufsatid sidii aad filaysayna aysan waxba kugu noqonin oo hadhowdii ay dhibaato kugu noqoto. dabcan waa meel aad u weyn meeshani Hyderabad, waa meel ay ku nool yihiin dad kala duwan oo badan, inkastoo muslimiin ay u badan yihiin, Soomaaliduna way badan yihiin oo way joogaan, inkastoo deegaanadooda ay hal meel ay degaan sida Soomaalida lagu yaqaano
waxaan nahay badanaa dad is aruursada oo hal meel dega balse waxaa la yaab leh in dalalka shisheeyana aan isku aruursanno kaannagana aan isku cunno xogta aad u baahan tahay amaba caawinaadda aad u baahan tahay runtii ma ahan wax muuqaalkan oo keliya ah lagu soo koobi karo balse muddooyinkii ugu dambeeyey markii aan fiiriyey xaaladda ka jirta meesha iyo baahida dadka ay qabaan inay tahay mid in wax laga qabto u baahan sidaas awgeed waxaan sameeyey shirkad ka caawisa dadka dhanka caafimaadka dhanka waxbarashada iyo safarada dibadda muddo 3 sano ah ayayna shirkaddani shaqaynaysay oo markeenii hore waxaan caawin jirnay ardayda doonaysa inay dibadda ay wax ka soo bartaan jaamacadaha ayaana ka u soo saari jirnay fiisaha ay dalka ku gelaanaan ka caawin jirnay safarkoodii oo dhan ayaan isku daba ridi jirnay waxaan siin jirnay la talin dhanka jaamacadaha dhanka waxbarashada dhanka deegaanka yacni qofka ardayga ah xogta u baahan yahay oo dhan si uu u fahmo meesha uu u socdo sida ay tahay dhaqaalaha nolosha waxa ka horeeyo meesha la rabo inuu wax ka bilaabo iyo meesha ay wax u soconayaan xogtaasi oo dhan ardayga waa wax muhiima u baahan yahay muddadii 3 sano ugu dambeysayna arday aad u badan ayaan ka caawinay in ay dalka dibaddiisa ay waxbarasho u aadaan haddii noqon lahayd India Malaysia Cyprus Turkiga iyo wadamo kale balse haddaba baahidii haysay ardayda waxay haysaa dadkii bukaanka ah ee caafimaadka u imaanayay India sababtoo ah qof walba waxa u baahan yahay inuu helo xog ku filan iyo caawinaad sax ah amaba uu helo qof uu aamini karo ay ka caawin kara muraadka uu rabo shirkaddanna sidii ardayda ay u caawin jirtay ilaa haddana ay u caawiso ayay dabcan hadda u caawin doontaa dadka caafimaadka u yimaada dalka India waxaan ka caawin doonaa inaad heshid macluumaadkaad u baahan tahay oo dhan inta aadan Hindiya aadin isbitaalada midka ugu fiican xanuunka aad rabtid in laga daaweeyo midka ugu fiican qiimo ahaan qarash ahaan inta kugu bixi karo deegaanka meesha ugu wanaagsan nolosha meesha sida ay tahay dhaqaale ahaan waxa kugu bixi kara noloshaada iyo maciishada iyo safarkaaga hadday noqon lahayd fiisihii aad ku tagi lahayd Hindiya hadday noqon lahayd in laga caawiyo deegaankii in lagu diyaariyo meel aad tagtid in eelaboorka laga soo kaxeeyo maadaama aadan garanaynin meesha aad timid waxyaabahaas oo dhan oo si xaqabtiran ah oo dabcan ku salaysan amaba ku beesgaraysan in adiga lagu caawiyo ma ahan in adiga wax laga raadiyo amaba in adiga dabcan lagu dhibaateeyo taasi waa mid aan ka duulayno hadafkan wuxuu yahay in adiga laga caawiyo safarkaaga una noqdo mid aad jeclaysatid oo aad u riyaaqdid oo aad dabcan muraadkaaga si xaqabtiran aad u bogatid haddaba kaliya waxaad u baahan tahay inaad lambar shaashada saaran aad la xiriirtid si xogta aad u baahan tahay ee ku saabsan Hindiya gabi ahaanteedoo dhan dhanka caafimaadka xitaa dhanka waxbarashada haddii aad tahay arday tani way ku qosaysaa laftirkaaga balse diiradda muuqaalkani wuxuu saaran yahay dadka caafimaadka u imaanaya India adeeggaasoo dhammaystiran ayaad heli doontaa xafiis waxaan ku leenahay magaalada Nairobi sidoo kale xafiis kale Hindiya ayaan ku leenahay Soomaaliyana waan ku leenahay xafiisyo kale haddaba nala soo xiriir si aan kuu caawino si aad u heshid xog kugu filan inta aadan Hindiya tagin oo ku maasan daawashada muuqaalka haddii halkan aad soo gaartayna waa kaaga mahadcelinaya channelka subscribe dhaho si aad u heshid macluumaad badan oo ku anfaca muuqaalka like saar asxaabtaadana la share garee gaar ahaan kuwa daneynaya inay Hindiya caafimaadka u yimaadaan amaba ay keenaan waalidiintooda intaan kulmayna muuqaalka mid ka xigan waxaan kaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo